daawadayaal habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii barashada af Soomaaliga aad kala socotaan talaadada saacada marka ay tahay 5 fiidnimo ee London aan ku soo qaadanaa alaaba barashada af Soomaaliga naxwaha iyo kayfar barashada caruurta isna inoo dhiman naxwaha baan ilaa hadda wadnaa oo aan dhowr darsi ka soo dayay halkan ku saabsanaa guud ahaan magaca sida marka la qeexayo af Soomaaliga waa maxay magac la Ingiriisku kale what's noun oo kale ama Talyaaniga kale yani que cosa il nome marka barashada guud ee naxwaha af Soomaaliga magacaan soo qaadanay qodobaan soo qaadanay magacyada soo qaadanay laakiin caawa waxa aan doonayaa maadaama farbarashadii caruurta inuu dhiman tahay oo farsamada awgeed howlo ay nooga xiran yihiin oo soo gali doona isagana caruurta Soomaaliyeed halkaan aan ku bari doono farbarashadii ayaa waxa yani caruurta Soomaaliyeed waxa la iga codsaday waan sheegayaa in lagu yiri fadlan teacher always yani markaad start garaynayso programka Soomaaliga ah please ma akhrin kartaa ma sheegi kartaa Somali alphabetka ba taada noogu furi kartaa yes aan leeyahay habaan idooranay caruuray barnaamij kasta waan sheegay oo ku saabsan naxwaha ama farbarashada caruurta waa idinku furi doona hadda ka bacdi xurufta Soomaaliga shibaniyaashii shaqalada baan ku furaya marka saas baan idin samayn doona barnaamijkan idinka iskale oo afkiina hooya way umadan afkeeda horumar umadan afkeeda jeclaan umadan afkeeda ka shaqeyn umadan afkeeda yani horumarin oo aan ku faanin dhaqankeeda hidaheeda diinteeda meel kale ka hormari mayso waxbana ha iswareerinaha waqtiga la iska qaaday haddaad afkaada jeclaato hidahaada jeclaato diintaada jeclaato quraanka jeclaato af Soomaaligaada dhaqankaada huga dhaqanka dharka dhaqanka haddaan aragno barnaamijyo huga dhaqanka ah dharka dhaqanka lagu soo aroosyo lagu soo bandhigayo huga dhaqanka gabadhii wiil isguursanayo wada dhaqankii Soomaaliyeed siid barnaamijyo inaan qabano degmooyin kala duwan oo Europe meel kasta noqoto hugi dhaqanka BBC lagu soo bandhigayo BBC lagu soo bandhigayo Jazeera lagu soo bandhigayo leeyahay ummadda Soomaaliyeed haddaad afkaada ku faanin oo aadan afkaada yani aad caruurta barin waxa weeyaan waa waqti lumis weeyaan marka waa dadaalaynaa afka siiyo yani afkeena uu noqdo af xoog leh suugaanta lagu qoro tixday tiraabtii wax walba lagu soo horgeliyo marka caruuray waxaan sameeynaa caawa sida idin ballan qaaday barnaamijka farbarashada waa idin dhiman yahay dad badan baa sugaya waa la socdaa kii naxwahan baan hadda ku jirnaa marka bal xuruufta af Soomaaliga xuruufta la yiraahdo af Soomaaliga alfabetadana waa la yiraahdaa alfabetana waa la yiraahdaa xuruufta af Soomaaligana waa la yiraahdaa far Soomaalina waa la yiraahdaa saddexdaa baa la yiraahdaa marka far Soomaali xuruufta alfabetka kullu waa la isku yiraahdaa marka adduunka afaan xuruuf lahayn ma jiro marka waad soo ogtiin xuruuf kasta ee adduunka jirta yani waxa ay leedahay shaqalo iyo shibana bay leedahay marka caruuray shaqalo iyo shibana bay leedahay waalidow shaqalo iyo shibana waad garanaysaa marka waxaan leeyahay caruurta hadda waxaan idin akhrinayaa shibanayaashin caawa leeyahay yani dalbateen marka start garaynaysid noo sheeg alfabetka xuruufta akhri yes waa akhrinaya marka على با تا جا ح خ د ر ص ش ض ع ج ف ق ك ل م ن و ه ي وكاسا مركا عروري مركا دغيسانيسان waxay u dhigantaa like English language ka markaad baranaysaan oo reception class ka ah ama year 1 ka tagtaan yani English alphabet ka markaad baranaysaan u dhigantaa the sounds al yiri xaq markii la barayo oo waad ku haystaan waxaad tiraan A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T V W X Y Z waad ku haystaan marka laakiin marka waxaan isku dhawaaqa markii la barayo sounds ka yihiin waxaad u bartaan sida hadda Soomaaliga kale hadda Soomaaliga markaan akhrinay ciyalka Ingiriiska wixii ilmaha Europe Ingiriiska halkan badan waxay leeyihiin macna Ingiriis English sounds weeyaan Somali sounds weeyaan caruuray marka ku soo celinaya marka ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga